bismillahi raxmaan raxiim. hadda waxaanu imanaynaa mode on Cisco router. modiska uu ka kooban yahay Cisco router ku baynu imanaynaa. Cisco router haddaan soo hada qaadna Cisco switchna waa la mid labaduba waa same functionality. marka meel kasta waxaa jira markaa commands loogu talagalay. wuxuu ka kooban yahay mode loo yaqaan setup mode oo modeka uu soo kacaya ah. setup modeka markuu ka kooban yahay waxa weeyaan if non volatile RAM is blank. hadduu blank yahay waa halkuu ka soo kacayo. marka beginningkii weeye waa booting processkii oo ah setup modekii. user mode baa jira oo userka loogu talagalay oo privilegeka userka loogu talagalay si aanu userku sidiisa wax loo kala samayn karaa hierarchies ama layer la kala samayn karaa. layer user mode la yidhaahdo jira oo basic commands ay ku jiraan. only some basic monitoring commands baa ku jira. waxay sida tusaale ahaan in wax ka bin gareeya show run, show interface, show IP interface, brief ayuu ka samayn karaa. privilege mode modeka loo yaqaana jira waa monitoring and some troubleshooting ayaa igana loo isticmaala. wadnaha ah meesha ah ee laga sameeyo waxa weeyaan all configurations halkay ku jiraan waxa loo yaqaana global configuration mode. global configuration mode waa global level wixii laga sameeyaa uu saameynaya. magaciisa laga bedeli karaa, device-ka wax laga bedeli karaa, interface-ka laga gudbi karaa, interface kasta looga sii gudbi karaa, functionality-ga routing protocols-ka halkan laga siinayaa. global mode baa loo yaqaana. hoos marka looga sii dego waxaa jira interface mode oo specific interface laga sii configure garayn doono. iyo waxaa jira marka la reverse garaynayo ee la rabo tusaale ahaan reverting in lagu sameeyo passwordkii waxaa loo yaqaana roam mode baa loo yaqaana. roam mode oo haddii routerkaagi aada weydid ama aad rabtid inaad format garaysid oo halkaad ka format garaynaysid. okay, haddaba inagoo soo qaadanay sawir google-ka kasoo download garaynay loo yaqaano tusaale ahaan isagoo oo switcha ayaa waa user modeka laga imanayaa. enable ayaa lagaga soo gudbayaa marka la rabo in la yimaado global configuration mode. halkanaa la imanayaa deetana enable mode aan idhaahdo user mode enable baa laga yimaadaa. enableka marka la yimaado waxaa loo sii gudbaya global configuration mode config terminal ayaa lagu gelayaa. deetana waxaad joogtaa global configuration mode. global configuration mode interface level haddaad uga sii gudbaysid interfacekaad sii gelaysaa. haddaad rabtid inaad interfaceka dib uga soo laabatid global kusoo noqotid in exit baad odhanaysa. haddaad rabtid inaad global configuration mode kasoo noqotid oo user mode timaadid waxaad odhanaysaa markaasi enable exit baad odhanaysa. exit baad kaga soo noqonaysaa hadba meesha u dambaysa. haddaad laakiin rabtid interfaceka inaad ka timaadid oo toos u timaadid halkan exit halkaad ka odhan lahayd end ayaad odhanaysaa. end ayaa mar kaliya kusoo tuuraysa. optionka labaad waxa weeyaan inaad isla qabatid control iyo z kabacdina xaggana dib ugu soo laabanaysa.